maanta waxaan idiin wadaa qisa aad u xanuun badan. qisadana waxay ku saabsan tahay gabarh Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Sacuudiga. markii hore waxay ahayd gabarh ku filan nolol maalmeedkeeda ama kaafisan nolosheeda. waxaa la soo darsay cudur xagga keliyaha ah. gabadhani waxaa lagu dhahay mar ay dhakhtarrada u tagtay, gabadh yahay waxaad u baahan tahay in keliyaha lagaa beddelo. runtii maaha mid awoodda inay keliyaha iska beddesho, hase ahaatee waxaa lagu dhahay maadaama aanay haysan waxaad keliyaha ku beddeshid, waxaa lagu samayn doonaa caawimaad xagga dhaqitaana oo ina maalin kastaba keliyaha lagaa dhaqo. runtii gabadhani waxay ahayd mid nolol maalmeedkeeda ku filan oo shaqaysata. maalinba maalinta ka sii dambaysa xanuunkii waxa uu ku noqday mid ku soo siyaada. dhakhaatiirtu waxay ku dhaheen ma awoodno inaan wax kuu qabanno ama aanan ku caawinno. hase ahaatee iyada xanuunka haya waxa uu ku noqday mid aad u daran, sababtoo ah ma awooddo inay maalin kastaba keliyaheega lacagta lagu dhaqayo ay bixiso. hadda waxa ay la jiran tahay xanuunka keliyaha. fadlan haddii aad tahay qof Soomaaliyeed ama qof muslina, fadlan gabadha soo caawi. haddii aanad caawin karayn, fadlan sheer dheh oo sii gaadhsii ummadda Soomaaliyeed si ay u caawiyaan. fadlan sheerka aad dhahdo ama qof Soomaaliya aad tusto ama qof muslina aad tusto waxa uu bixiyo, adiguna ajar ayaad ku leedahay. fadlan haddii aan Soomaali nahay, runtii waxaan arkaynaa gabadhan Soomaaliyeed dhibaatada ka muuqata. fadlan sheer dheh u gaadhsii ummadda Soomaaliyeed. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.